kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media Alaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogihii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan muuqaalkan inta aad daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii u dambeeyay ee dhacdooyinkii ka dhacay bariga dhexe iyo sidoo kale dagaalada xilligan ka soconaya iyadoo Xisbullah ay si toos ah ugu soo biirtay dagaalka isla markaana duqeymo ba'an ay ka geysatay dalka Israa'iil waxa sidoo kale muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa wararka sheegaya in la dilay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu maxaa ka jira dilkaasi xogihii u dambeeyay ee soo baxaya ayaa muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkan furso ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xigaadiya subscribe inoo taayna muuqaalkan oo share garay like inoo saar si uu gaaro asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno safaarada Mareykanka uu ku leeyahay dalka Kuwait ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen weerarada ay fulinayaan Iran iyadoona hadda la arkayo dab iyo qiiq cirka isku sii shareeray kadib markii safaarado dhowr ah oo ku yaala dalkaasi ay Iran bartilmaameysatay isla markaana ay ku garaacday gantaalkeeda iyo sidoo kale hubka ridada dheer iyadoona hore Iranba u shaacisay in meel walba oo saldhig ugu yaala Mareykanka ay si gaar ah ay u bartilmaameysan doonto inkastoo Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iilba ay xilligan ay diyaar u yihiin in Iran ay wada hadal ay la galaan iyagoona sheegay in rabitaankoodii kaliya uu ahaa dilka hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei balse Iran ayaa gabi ahaan iska diiday wada hadalada ay soo dalbanayaan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyadoona ku hanjabtay in marnaba aysan wada hadal dhagali doonin dalalkaasi dhinaca kalena ciidanka ilaalada kacaanka ayaa xilligan idin la hadlayo waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay digniino kala duwan ugu dirayaan shacabka ku nool dhulalka ay bartilmaameedka ay u yihiin Iran kuwaas oo ay doonayaan inay ku weeraraan hubka ridada dheer iyo sidoo kale kuwa balaastikada war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka ayaa waxa lagu yiri waxaan kula talinaynaa dadka ku nool dhulalka la heesto Israa'iil ilaa iyo saldhigyada Mareykanka in ay ka fogaadaan saldhigyada militariga xarumaha ammaanka iyo kuwa dawladda kuwaas oo la rumaysan yahay in Iran ay xil walba ay weerar ay ku qaadi doonto balse ay u tureyso Iran dadka shacabka sidaas darteedna ay soo saartay war-saxaafadeedkan ay ugu digayso inay isaga fogaadaan goob walba oo Iran la tuhmayo inay weerar ay ku qaadi karto amaba ka agdhow saldhig walba ee Mareykanka uu ku leeyahay wadamada Khaliijka Carabta oo horeyba qaybo kamid ah Iran ay duqeymo fara badan ugu geysatay dhinaca kalena diyaaradda F-15 ee uu leeyahay dalka Mareykanka ayaa ku soo dhacday Kuwait iyadoona wararka ay sheegayaan in Iran ay soo riday diyaaradaasi iyadoona adeegsanaysa hubka ridig ku ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inkastoo diyaaradan la sheegay in uu waday duuliye isagoo dhaawac ahna gacanta lagu dhigay Iran ayaa diyaaradaheeda waxay dul heehaabayaan hawada bariga dhexe iyo sidoo kale wadamo kamid ah Khaliijka Carabta iyagoona si toos ah u bartilmaameysanaya saldhigyada ee Mareykanka uu ku leeyahay dalalkaasi Khaliijka Carabta iyo sidoo kale bariga dhexe waxa xilligan olol xoogan uu ka baxaya qaybo kamid ah bariga dhexe oo Iran subaxnimadii hore saaka ay weerar kala duwan ka fulisay halkaasi iyadoo sidoo kale wadamo ku yaala Khaliijka Carabta ay sidoo kale Iran saaka ay weerar kala duwan ay ka geysatay iyadoona sidoo kale Iran markaan bartilmaameedyadeeda kaliya aysan ku akeen in ay bartilmaameysato saldhigyada militari ee ku yaala wadamada Khaliijka Carabta ay ugu horeeyaan Qatar Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Kuwait iyo wadamo kale oo xilliganba ka soo horjeeda Iran isla markaana dhaleecin badan hawada u marinaya isla markaana iyagoo ku tilmaamaya in Iran duqeymaha iyo sidoo kale dagaalka ay wada ay yihiin oo kuwa xadgudub ku ah inkastoo marnaba kuwan aysan soo hadal qaadin duqeymaha lagu gardarooday Iran ee markii hore ay soo qaadeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka waxa sidoo kale dagaalka markaan si toos ah ugu soo biiray Xisbullah oo ay fariigoodii uu yahay Lebanon kuwaas oo duqeymo ba'an ka geystay amaba ka fuliyay Israa'iil gaar ahaan magaalada Hayda
xisbullah oo markaan uu soo dhaqaaqay dhiigii iyo damiirkii ayaa waxa ay dareenkeeda ay kula soo safatay Iiraan iyadoona sidoo kale ee duqeymahaasi ay la bartilmaameysatay goobo muhiim u ah Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ku yaalaan dhulalkaasi la haysto. xisbullah waxa ay noqotay wadanka soo taageeraya ay kamid ah carabta ah ee Iiraan, inkastoo Pakistan hore ay taageero weyn ugu muujisay Iiraan, waxaana laga cabsi qabaa sidoo kale dagaalka in ay ku soo biiraan Xuutiyiinta Yemen oo markaan ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ay ku taageeri doonaan Iiraan, maadaama wadamo badan oo kamid ah carabta ay si adag ugu soo horjeedaan Iiraan isla markaana ay la safan yihiin wadamada reer galbeedka ee aan muslimka ahayn. xisbullah waxa ay noqotay wadanka markaana sida aadka u taageeraya isla markaana qaaday tallaabo culus oo ay ku beegsanayaan Iiraan, inkastoo Ruushka iyo sidoo kale Faransiiska ay si aad ah naftirkoodaba ay u taageereen Iiraan isla markaana falkii ay fuliyeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ku tilmaameen wax lagu xumaado, iyagoona fariin dheer u diray labada hogaamiye kuna tilmaamay in falkaasi ay loo baahnaa inay ka baaqsadaan, haddana looga baahan yahay inay wada xaajood ay sameeyaan oo dagaalka halkiisa ay ku sii qaboojiyaan, maadaama qaybo kamid ah wadamada ee bariga dhexe ee qaliijkaba ololkoodii uu baxayo isla markaana dhismayaal badan dhulka lagu daray saldhigyo ay leeyihiin Mareykanka. dhinaca kalena waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada si aad ah loogu shaacinayay dilka ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu, iyadoona weli aysan ka hadlin mas'uuliyiinta ugu sareeya dalka Iiraan aan iraahday mas'uuliyiinta ugu sareeya ee dalka Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka. wax faahfaahin ah kama aysan bixinin la xiriira dilka baraha bulshada sida aadka ah la isla dhaxmarayo ee ku aadana dilka Benjamin Netanyahu. inkastoo Iiraan ay shaacisay in ay dishay amaba weerar ay ku qaaday Iiraan gantaalada iyo sidoo kale hubka ridada dheer ay ku dhufatay ay shaaciyeen in ay dileen ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu, inkastoo warkaasi aan la cadeyn karin amaba aysan jirin ila kale oo madax banaan oo xaqiijiyay dilka Benjamin Netanyahu. wararka qaar ee isla dhaxmaraya baraha bulshada ayaa sidoo kale lagu beeninayaa isla markaana lagu sheegayaa in ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil xilliganba uusan ku sugnayn dalkaasi oo uu ka maqan yahay isla markaana uu ku sugan yahay dal kale. Benjamin Netanyahu ayaa naftirkiisa looga baahnaa inuu soo hadlo isla markaana uu beeniyo wararka sheegaya geeridiisa, inkastoo qudhiisa uusan weli soo hadlin. arintaasi ayaa waxay shaki ay gelin kartaa aamusnaantiisa in warka ka soo baxay Iiraan uu run yahay la dilay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. waxaana Iiraan ay ku sheegtay inay ugu arguday hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo kamid ah ee dalkaasi Iiraan oo xilligaani duqeymihii ay sida wadajirka u fuliyeen Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka ay ku geeriyoodeen. waxayna Iiraan ay markaan ay diyaar u tahay in dagaal nooc walba ah ay la gasho Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka, iyadoona hore wacd ay ku martay in dagaalkeeda marnaba uu sii joogsan doonin oo halkiisa ay kasii wada doonaan. waxaana xilligan baqdin aad u xoogan soo food saartay wadamo kamid ah qaliijka carabta iyo sidoo kale qaybo kamid ah bariga dhexe oo xilligan dalbanaya in Iiraan wada hadal ay diyaar u haato isla markaana la doonayo in la xajoodo. Iiraan ayaa dhankeeda maanta aanan ogoleen wada xajood maadaama hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalkaasi duqeyn lagu dilay, iyadana ay doonayso in ay u argudo isla markaana in hogaamiyaal badan oo la aaminsan yahay xilligan inay dabada ay ka riixayaan dagaalada ku soo noqnoqday bariga dhexe ilaa iyo ay dhulka ay ka dhigto. falkii lagu weeraray hogaamiyihii Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxaa mas'uuliyadeeda uu lahaa Mareykanka, inkastoo ilaa hadda wadan soo hadal qaaday amaba eedan u jeediyay Mareykanka uusan jirin. dhammaan wadamadii ka hadlay ay kamid yihiin kuwa Carabta iyo kuwa Afrika iyo sidoo kale qaybo kamid ah bariga dhexaba ay eedeen ay dusha ay kaga tuurayaan kaliya Iiraan. wixii xoogay ku soo kordhay ee la xiriira xaaladda marba mar isbedelaysa ee ka taagan bariga dhexe sidoo kale qaliijka carabta. muuqaaladeena kala xiga ayaan ugu soo gudbin doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelka fursi ay ku soo gaaraan muuqaalada kala xiga.
haddii subscribe inoo tahay in muuqaalka noo share garay like inoo saar aragtidaadana waa inoo muhiim inoo ugu reeb qaybta faalada waad ku mahadsantahay daawashadaada